بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسير حلبان سعيد، قدومي موليد، قدومي حلنة، أستاذ شافعي، لمان أقولني هنذا يا مدح هذا كان سوي من حيث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي آدي أو فرح سنة هاي أنا كسوق قيب قلا شخصيا كلن كان يسوي من أقولني هنذا كلا دوان مقالة قيبه هذا كلا دوان بلشة الصومالية كتر سن لما أنتوا بدنا كم بداية سن أوركا سوم إنديا وحسيتو كلا كفرح سنة هاي أنا وقال لي مجا جامعة جمهورية University of Science and Technology inaan ka midnahay sponsorska kulankan jaamacadda jamhuuriya waxaa xubno badan ay ka tirsan dadkii aasaasay dad ka shaqeeya ee maamulkeeda ah dadka maamulka sare ee board of directorska qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda wax ka dhigaan qaar badan ee ka mid ah waxay xubno ka yihiin ururkan oo in badan ay ka mid ah waxay ku soo barteen dalka Hindiya. waxa ugu horeeyo Ustaad Cusmaan Xalle oo odayaasha jaamacadda ka mid ah oo reer Hindiya oo dhan aan rajaynay inay yaqaanaan. waxa uu Cusmaan Xalle ka mid ah aasaasiyaashii jaamacadda sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa board of directorskii ugu horeeyay jaamacadda. waxaa sidoo kale xubnaha jaamacadda aasaasay ka mid ah Ustaad Saciid Macalin Abuukar oo nala joogo oo isaguna xubin ka ah hadda board of directorska jaamacadda. waxaa sidoo kale dadkii aasaasay jaamacadda ka mid ah Ustaad Maxamed Cabdikariin oo dadkii ugu horeeyay ee ku soo laabtay dalka ka mid ahaa Cusmaan Xalle dadkii tirada koobnaa ee ku sheekeynayay ka mid ahaa. waxaa sidoo kale ka mid ahaa welina maamulka jaamacadda ka mid ah Ustaad maxaa Cabdullaahi Cali Khalaf oo injineerka loo aqoon jiray dadkii Hindiya ku yaqiinay. maxaa Cabdikariin waa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha financiga iyo maamulka finance and admin. injineer Khalaf Ustaad Khalaf isaguna waa diinka ama hormuud kulliyadda computerka ee jaamacadda jamhuuriya. waxaa sidoo kale dal joogo Dr. Cabdinuur oo ah madaxa xafiiska cilmi baarista ee jaamacadda jamhuuriya oo isaguna dadkii Hindiya wax ku soo bartay ah bachelor iyo master oo Hindiya ku soo qaatay PhD ayuu China ka soo sameeyay. waxaa sidoo kale ka mid ah aniga oo Maysuur iyo sida maqlisiin Coimbatore wax ku soo bartay. waxaa ka mid ah Cabdifataax Ibraahim Cumar oo isaguna pharmacy ku soo bartay Coimbatore master Thailand ku soo qaatay haddana PhD Thailand ka wado. waxaa ka mid ah Ibraahim Barqadle oo isaguna reer Hyderabad ahaa microbiology iyo arrimahaas ah. waxaan ku faraxsanahay innaga iyo inta kale halkan joogtay qolo walba ay magaalada qayb ka joogaan oo bulshadiina aan ku soo celinay shaqooyinkii iyo hawlihii aan soo qabanay diyaarna u nahay inaan bulshada u shaqeyno hadduu allina. waxaa taqaanaan oo ogtihiin dadka diaspora ay ka yimid ama Yurub ama Mareykanka waxay aad u yaqaanaan maqaayadaha iyo hoteelada. markay soo laabteen magaaladii maqaayadaha hoteelada ay u badan hawlaha ay qabtaan ama hawlaha ay nagu soo celiyeen. innagu waxaan ku faraxsanahay inaan soo celinay ama haddii ahaan lahayd isbitaallo ama haddii ahaan lahayd jaamacado institutes shirkado iyo intaba. waxaa ka mid ah dadkii ugu dambeeyay dadkii jaamacadda aasaasay nin ka mid ah oo markii hore Jordan wax ku soo bartay ayaa
waxbarasho master ah wuxuu hadda ka wadaa IIT Delhi Indian Institute of Technology Delhi oo ka mid ah sida taqaanaan dabcan institutes ugu weyn engineer Abdallah isagana haddii aan waxyar kooban kaga sheego jaamacadda jamhuuriya waa anoo soo koobayo jaamacadda jamhuuriya waxaa la aasaasay sanadkii 2011 aqoon-yahanadaas aan sheegaynay qaar ka mid ah oo markaas soo laabtay oo magaalada meelaheeda kala duwan ku jiro bangiyo jaamacado iyo xarumo kale intaba joogo iyo kuwa kale badan oo iyaguna ku soo bartay dalal kale haddii aan lahayn Pakistan Sudan Jordan iyo meel kale badan ayaa isu kaashaday asaaska jaamacadda jamhuuriya iyagoo dabcan ku talagelayay gaabka ay dareemayeen inuu ka jiray waxbarashada sare inay wax ku dari karaan sidaas ayadoo niyadda lagu hayaa loo asaasay jaamacadda jamhuuriya waxaan uga mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noo suurtageliyo waxyaabo badan oo ka mid ahaa hiigsigeennii weli aan ku guda jirno suurtagelideeda waxyaabihii noo suurtagalay waxaa ka mid ahaa in ilaa 5 dufcadood ay ka qalin jebisay jaamacadda arday ka badan 1500 oo arday inay ka baxeen nasiib wanaag ilaa 67 boqolkiiba afartii dufcadoodii hore cilmi baaris aan ku sameynay xiriir aan la xiriirnay qolo walba waxaan ku ogaanay ilaa 67 boqolkiiba inay shaqeeyaan arday jaamacadda ka baxeen afartii dufcadood ugu horeysay dufcada dambe markay bixisay ayaan sameynay dabcan cilmi baaristaas ilaa boqolkiiba 10 ka midana waxbarasho sare inay ku maqan yihiin taasoo ka dhigayso boqolkiiba 76 inay ama shaqeeyaan ama ay masters iyo wadaan taasoo muujinayso in dadaalkii aan dadaalna Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu guuleeyay oo shaqo fiican aan bulshada u qabanay waxyaabaha jaamacadda jamhuuriya ay aad ugu dadaasho loona aasaasay waxaa ka mid ah practicaliska sida laga yaabo inaad ku arki kartaan presentationska ama videoga practicaliska waxa aan dhigaynay inay noqdaan itus itaabsi waxa sidoo kale jaamacaddu ay ku dadaashay xiriir in la sameeyo jaamacado localka ku magaalada ku yaalo iyo gobolada kale waxa sidoo kale aan ku dadaalnay jaamacado banaanka ah inaan xiriir la sameeyno dalal ay ka mid yihiin Malaysia iyo Turkiga iyo South Africa iyo Uganda iyo Colombia waxa sidoo kale jaamacaddu ay ka tirsan tahay urur caalami oo ka mid yahay ururka jaamacadaha Afrika ururka jaamacadaha Carabta ururka jaamacadaha Geeska Afrika ay ka mid yihiin ururka jaamacadaha Soomaaliya uu ka mid yahay Somaliland ururka oo ay ku midaysan yihiin jaamacadaha dalka ugu magaca dheer waxa sidoo kale jaamacaddu ay leedahay xarumo ay ugu weyn tahay xarun la yiraahdo JTEC oo boorkeeda xagga uu ku yaalo Jamhuriya Technology Solutions oo loo aasaasay inay dadka ka qabtirto baahida xagga technology-ga waxa aasaasay jaamacadda dhammaan shaqaalaha ka shaqeeyana waa shaqaalihii ardaydii ka soo baxday ka soo qalin jabiyay jaamacadda waxay ku qabanayaan serviceska dabcan xag ku yaala technology nooc walba aad uga baahato waxay jaamacaddu leedahay xarun lagu qoro imtixaanaadka caalamiga ee taqaanaan qofkii IT iyo arrimahaas soo arkay Pearson View Center xarun imtixaanadii loo aadi jiray Kenya iyo Ethiopia iyo meelaha la midka ah in halkan ku qori karto haddii aan lahayn Cisco Microsoft Oracle iyo shirkadii waaweyn ee taqaanaan sidoo kale BNB imtixaankan caalamiga ee taqaanaan BNB project management professional iyo isagana sidoo kale lagu qora waxa sidoo kale jaamacaddu waa xarunta kaliya ku taalo Soomaaliya lagu qoro imtixaanadaas Hargeysa iyo waxay ku lan jireen Puntland markii ugu dambeysay waa la xiray waxa sidoo kale jaamacaddu ay leedahay haysa xarun lagu qoro imtixaanada ACCA qofkii yaqaano imtixaanada accounting waaye computerized accounting imtixaanada kaliya lagu qoro waaye iyaguna halkan waxa ay hore noo yimid oo imtixaan ku qortay gabar ka timid gabar Pakistaaniyada oo safaaradda Djibouti ka shaqeyso Djibouti ka soo tagtay waxay ku qortay halkan ay imtixaankaas ku qortay dad badan oo Soomaali ay ka faa'iideystay imtixaanadaas ay ka shaqeynayno waxa ay jaamacaddu soo kordhisay sanadkii la soo dhaafay xarun Center for Graduate Studies lagu barto masters MBA waxa sidoo kale lagu bartaa postgraduate diploma in statistics and research oo ah takhasus very special qofkii danaynayo sidoo kale waxa ay leedahay master of data science master of networking waxa hadda baajka ugu horeeyay ay dhigtaan master of data science oo ah area
cusub oo aad adduunka hadda loo jecel yahay computer iyo qofkii dabcan bartay presentation iyo video ayaan soo diyaarnay laakiin waqtiga oo yar awgeys waxaan qaybta isla garanay video kaliya la soo daayay inta kale anigu inta kor ka xasuusto aan sheego waa ku mahadsantihiin waqtigiina iyo dhageysigiina aad ayaan ugu mahad celinaynaa ururka Som India fursadda ayna siiyeen خيارتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته